بسم الله الرحمن الرحيم داوديال meel kasta aad joogtaan salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuhu goobtu waa kaasal aniguna waxaan heshiina madaxay jasiira Soomaali News na daawadayaal waa nagala socotaan waasaan nooga barateen waa barnaamijkeena su'aalaha su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo adoo maasan marka hore ku soo dhaw jasiira Soomaali News oo maasanta su'aashu waxay noqonaysaa dadka waxtarka bulshada u leh maxaa markaas loo ugaarsanaya oo loo laynaya maxaa ku talin lahayd sida ammaanka loo heli karo magaalada Muqdisho waliba khaasatan waxay noqotay meel mar walba soo noqnoqday ammaan daradeedii marka tala iyo wax isku darsanaysa iyo sababta waxan soo celcelisay adoo magaca ku bilaabaya bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallahu alayhi nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi magacayga maxamed axmed baa la yiraahdaa reer kaasil baana ahay laba qaybood baynu kala qayb u qaadaynaa dadka aqoonta dadka waxtarka u leh bulshada maxaa loo dilayaa iyo amniga Muqdisho maxaa laga qaban karaa labadaas aynu kala qaadaynaa dadka bulshada waxtarka u leh maxaa loo dilayaa inuu horeysiinayna intaynaan u gadagelin amniga dadka waxa loo dilayaa idinku waad ka yaryartihiin maalintii dawladda dhexe burburtay ilaa abtinow dadka bulshada wax tarka alle ayaa la leeynay sida saraakiisha aqoon-yahanka culimada dadka indheergaradka salaadiinta iyo kaaba qabiilada ummadda bulshada hogaamiya carabiga waxa lagu yahay ahlul hal wal aqd dadka waxna xiri kara waxna furi kara bulshada Soomaalidu waxay tiraahdaa mas xagee laga dilaa madaxa laga dilaa waxa jira dawladda aynu dagaalanay oo darisinala ayaa jira dadkaas ay naga shaqaysanaya Soomaalina umusha way ka ilowshay dhowda umusha toddobaadka markay 40 ka baxdo way iska ilowdaa foosh iyo dhibkii iyo waxay soo martay Soomaalidu waa sidii oo kale laakiin maxamed kan wax dilayana waa Soomaali kan dilayana waa Soomaali musiibadaas sida uga bixi karnaa waa adeege musiibadaas ee looga bixi waa adeege waynu imanayna marka ummadda Soomaaliyeed maalintii dawladdii dhexe ay dhacday ilaa abtinow waxa la leynayaa dadka aqoon-yahanka bulshada ama dadka bulshada wax tarka waxaana leynaya mukhaabaraadka dawladaha dariska iyo dad dawladaha waaweyn oo ku shaqaysanaya iyaga si leynoo sanduleeyo waxay rabaan dawladaha reer galbeedku khaasatan waliba kuwan aynu ku dhaxnoolahay iyo kuwa la mid si waxay rabaan iyo danaha ay naga rabaan ee mustaqbalka foga leynoo ogolaysiiyo ayaa dadka loo tirtiraya uguma aanan tali gelin baa la yiri maalintii arta la tagay ee Cabdiqaasin la doortay uguma aanan tali gelin Soomaali inay inta sanduuq ay qaadato ummadda u wada jeeda ay sanduuqa cod ku kala baxdo uguma aanan tali gelin laakiin way dhacday baa la yiri dawladdii artana lugaha la isugu dhuftay tii Cabdullaahi Yuusufna waa lugaha la isugu dhuftay tii Sheekh Shariif waad ogaadeen mamruud iyo balaaya la yiri lugaha la isugu dhuftay tii Xasan Sheekh lugaha la isugu dhuftay tan hadda joogta lugaha la isugu dhufanaya waad u jeedaan idinkuba indhihiina macallinideen taas halkaas aynu kaga baxayna dadka Soomaaliyeed ee cadawga u adeegaya saynu wax uga qaban karnaa dawladihii naga waaweynaa iyo adduunka naga waaweynaa ba xamiil laga helaa hadda adduunka ninka ugu xoog weyn wadanka ugu xoog weyn yaa lagu tuumayaa mukhaabaraad wadan kale inuu u shaqeynayo marka inagoo Soomaali oo burburay oo gaajaysan oo dhibaataysan taas maxaa la inoogu shaqaystay ma oran karo sabab badan baa keenaya maxaa u aragtaa in amni iyo kala dambeyn iyo nidaam magaalada Muqdisho waliba magaalooyin kale lama wadaaga musiibada meesha ka socota Muqdisho sidee xal waara oo ammaan u heli kartaa adoo hal daqiiqo qaadanaya mar aduu masku soo weeraro xagee laga dilaa madaxa laga dilaa Soomaaliya madaxeedii iyo kurkeedii iyo maaragtay maskaxdeedii waa Muqdisho ummad marka la baabi'inayana laba shay baa lagala dagaalamaa ama labada shay waxa weeye amniga waa lagala dagaalamaa dadka aqoonta bulshada u leh waa lagu diraa dadka aqoon-yahankii ra'yi bulshadii kuma dhaxle siyaasi jaahila ummadii hor ordaya
ninkii aqoon-yahanka ahaa ama wadaad ha ahaado ama maadi ha bartee wax ka dhagaysanaya male saraakiishii qaranka joogta ee amniga takhasuska u lahay waxa la qortay saraakiil yar yar oon amnigii waxba ka garanaynin aqoon u lahayn raggii jararaalada ahaa raggii akadeemiga ahaa ee militarigii Soomaaliya iyo booliska iyo ciidamadii Soomaaliya qalabka siday aqoonta u lahaa ma shaqaynaya waxa shaqaynaya ragana akadeemi ahayn oo jararaalo lagu wada taxay ayaa shaqaynaya marka aqoontii sidii loo sugu lahaa iyo barnaamijkii maba fahmayaan marka arrintaas dhibaatada salka u leh talabaadna wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam walaa yarfa'ul balaa illa bi tawba ummadda Soomaaliyeed ilaa ay toobad keento balaayada in haysata lama dul qaaday dambi badan baa la galay markaas asar ilaa law yacdo من waxaan u jeedaa raas gambooni ilaa law yacdo dunuub baa la galay dhiig baa la daadiyay qofsi baa la sameeyay wax walba la sameeyay wax walba ilaahay inaga xaraam yeelanayno sameeyno marka ilaa aynu toobad la nimaano oo inuu ilaahay u noqono oo nin waliba naftiisa intuu la dagaalamo uu naftiisa soo xakameeyo wanaag ma gaadhay ma santahay waaye taasaan oran ma santahay magaca ku bilaabaya magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya mar walba dadka waxa la dilayaa waxtarka u leh bulshada dilkaasina waa mid soo noqnoqday waliba 10 sano u dambeeyay waxa la dilayaa Soomaali kan wax dilaya Soomaali kan dhimanaya waa Soomaali wax baaba'aya waa Soomaali ma aha inaan dad kale cadow oo meel kale ka yimisaysan waa Soomaali dilaya musiibadaas goorma xal loo helaya dadka waxtarka bulshada u leh maxaa markaas loo dilayaa بسم الله الرحمن الرحيم شيء هذه كاميرمان كقلب وما سنتين وسلام يا أصحاب الجزيرة دمانتود هرت هذا سؤال شاس كجواب مركر وحرب فرصتنا أو فائدتنا أو تعسي قدومي قبل كبنادر أحمد دقة بقال مغش إنجر أجنري ريسو نحرز جنا الله سيو كتاب في سويدك الله كسيو قبلنا الله واسع آمين يا الله أنت أسكدين هرت ولا 8 سنة شيء لكن 20 سنة كله ده أنت اللي دلاي هاي دتك محو dadka wax galka inta la dilay la ugaarsanay 20 sano ku dhowda oo hal loo dilay waxa la dilay generaaladii mar xilli waxa jirtay la ugaarsanay kaliya saraakiil wixii ah oo dab oo kabtan ugu hooseey ilaa iyo muxuu ahay generaal hal guriyooda lagu dilay ayadoo dawlad jirin oo wax jirin oo dad gooni loo ugaarsanay jiray waxa kamid ah injineer Elman Ali Ahmed Allah naxariiste waa badnaayeen marka horta waxaad fahamtaan waxa hadda Soomaalidu waxay aaminsan tahay wax dila shabaab kaliyihiin wax dila shabaab kaliya ma shabaab 10 sano jira asaga dhan ka hor dadka la dilay marka shabaab waa tool la isticmaalaysan aniga aaminsana shabaab waa wax macnaha la sameeyay loogu talagalay in dawladda Soomaaliya ay soo kor u kicin la curyaamiyo marka anigu ma aaminsan in shabaab wax walba ay soo sameeyaan waxa qaab badan oo dadka loo dilaa jiro waxa horta waxaan aaminsanahay wax galka waxa ugaarsada inay yihiin gacmo shisheey inta badan gacmo shisheey inay yihiin dadka Soomaaliya waa la adeegsada shabaabku dad gooniya ay wax gooni way sameeyaan laakiin inta badan waxa ay sheegtaan ma wada sameeyaan shabaab dadka aaminsan dadka waa raadsan tirasho waa shabaab inay sheegtaan xataa dhaqaale lagu bixiyo waan ognahay shabaab in lacag talsiya sheegto waxaas ama waxa la yiraahdaa fuliya dadka la kala maskax kala ka dambeeyay ay way fuliyaan shabaab laftooda dad la abuuray burcadbadeedka wana loo abuuray shabaabkana wana loo abuuray waxaan ka dambeeyay gacmo shisheey marka aniga waxaan qabaa waxaan waxa inay yihiin wax anagu gacmeena ku sameeysanay marka hore waxaan dadka iga horeeyay la qaba toobadkeen Soomaaliya toobadkeen dambi badan la sameeyay goobjoog baan u soo ahayn dambi badan dad waxba galabsan in gacanta la dilay goobjoog baan u ahayn marka dambi badan la soo taala toobadkeen marka labaad dadka Soomaaliyeed ee muxuu ahay wax galka ah inay ogaadaan in loo soo socdo ayagu sita maadaama ogin loo socdo lana dili doono inay gaashaan sameeyaan gaashaan si uusan bulshada kale ay kicinayaan in waxaan la iska qabto meel loo soo wada jeesto qof walba loo arko inuu caqabad ku yahay dad inaan qabyaalad lagu taageerin inaan jeclays lagu taageerin laakiin muhiimadda ay tahay war dalkan waa daal inta ka bacdi ma xamili karo in la yiraahdo inuu dulqaadku naga dhamaadin la yiraahdo gacmo la isqabsado dadkan la iska qabto waan aaminsanahay aniga waana wax loo jeediyo waxaan loo jeedin buu isugu jiraan marka waxaan qabaa aniga dawladda hala shaqeeyo dawladda lafteeda dadka ay shaqaalaysiisanayso ay maaragtay ay wax ka dhiganayso ay iska fiiriso dad badan oo waxa ku jira shisheey u shaqeeyad maanta xafiisyada dawladda fadhiya qarax ugu dambeeyay gobolka banaadir ka dhacay
waxaan aaminsanahay in aysan ahayn shabaab waxay sameeyaan ay yihiin dad waaweyn ka dambeeyay waxaan oo la adeegsaday xafiisyada dawladda ka shaqeeya la adeegsaday meelo badan oo galay raadkaas dawladdan waxaan ka codsanahay in sida u dhaqsiyaha badan baaritaanka ay sameeyay ay sheegaan dadweynaha u soo bandhigaan dadweynuhu waa inay dhageystaan maqlaan si wax u dhaceen waan ognahay haddii si dhab loo baaro dad waaweyn oo maanta xafiisyada dawladda ku fadhiya inay geli doonto baashas waan aaminsanahay marka waxaan dhihi lahaa ummadda soo gacmaha is qabsato ilaahay ha toobad keento waxaan waa laga gudbi karaa laga gudbado badan soo wada maray laakiin annagu waxaan adduunka kala ka liidanaa wadaniyadan ugu yar marka aan intaas ku soo koobi lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi waa mahadsantahay daawadayaal wali waxaan noo socdaa su'aalihii aan weydiinaynay bulshada ku nool wadankan Jarmalka gaar ahaan magaalada Kassel adoo magaca ku bilaabaya waxa soo noqnoqday in ummadda Soomaaliyeed ay islayso wax macna aan lahayn ay isku laynayaan kan wax dilayana waa Soomaali kan dilaya waa Soomaali musiiba socota wax ka hadlaya oo u gurmanaya u kacayana ma jiraan dadku ma baqayaan ma musiibo kala haysata garan mayno maalin kasta dad wax la dilaya hal doorkii wadanka marka waxaan ku weydiinaynaa maxaa bulshada waxtarka dadka waxtarka u leh bulshada maxaa loo ugaarsanaya oo loo laynaya haye magacaagan ku bilow horta magacaygu waa Daruus Maxamed Cusmaan waaye waxa ummadda Soomaaliyeed musiibadan socoto wax gacmaheeda ay ku subsato waaye kom hadee dhumto inay u soo noqdaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala Soomaalida musiibada koowaad waxa weeyaan qalbiyooda waxay ka tageen diinta islaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax kasta quraankaas uu mubayyan ka dhigay ummadda Soomaaliyeed waxa kala baxda qabiil waxay subsadaan boqolaal calamo maro oo la kala garanaynin ummadda Soomaaliyeed waxa leeyahay midnimada iyo dadka la baabi'inayo door weyn waxa ka dheelay shacabka Soomaaliyeed doorka ku dheelan waxa weeyaan inay muujiyaan midnimadooda way ka soo horjeestay waxay muujiyeen qabiil qalbiyada ka buuxo ummadda Soomaaliyeed iyo calamo oo goon istaag la suubiyo maamul goboleed oo meel u socdo lahaanin ummadda Soomaaliyeed waxa uu talinayaa inay shacab midoobaan naqdaan qabiil inay ka tagaan wadamadan aan joogno heer galbeedku wuxuu wax ku gaaray horumar iyo wax ay qorteen dastuur ay subsadeen dastuurkaas ay ku dhaqmaan ku dhaqmin hab qabiil iyo ku dhaqmin nin jeclaysi waxay ku dhaqmeen warqadaas ay ku heshiiyeen ay wax ku dhaqaan xeerna ka dhigteen ummadda Soomaaliyeed waxa uu talinaa inay xeer midaysan iyo kitaab Ilaahay u naqdaan inay Ilaahay ka baqaan midnimo ay muujiyaan waxaan maamul goboleedyada la kala taageeraya in la joojiyo ummadda Soomaaliyeed gacmaha inay isqabsadaan taas tala iyo waani inta hadii gacmaha isqabsaneen maalin kasta musiibada sii soconayeen oo baabi'een taas waa mahadsantahay